dalka Maraykanka ayaa imika si rasmi ah u qirtay inuu Soomaaliya ka fuliyay weerar aanu abidkii dal kale ka geysanin kaas oo waliba ku faanay farsamada uu adeegsaday sida ku cad bayaan rasmi ah oo uu soo saaray Admiral James Kilby oo ah kusimaha howlgallada ciidanka badda Maraykanka. markabka dagaal ee dayuuradaha xambaara ee loo yaqaano USS Harry S. Truman ayaa weerar cirkii ugu cuslaa ee markab dushii laga soo qaado waxa uu 1 Febraayo sanadkan 2025 ka fuliyay dalka Soomaaliya. waliba waxa uu qirtay in howlgalkan Soomaaliya laga fuliyay loo adeegsaday 125,000 oo rodol oo bombaanooyin iyo gantaalo iskugu jira oo lagu wada riday dalka Soomaaliya. si aad u fahanto dawladda ugu hubqaad badan dalka Maraykanka ee B-52 Stratofortress waxay qaadaa 70,000 oo rodol oo gantaalo iyo bombaanooyin ah balse hubka Soomaaliya lagu ganay 2 jeer ayuu ka badan yahay cadadkaasi. Admiral Kilby ayaana weerarka ku tilmaamay weerar duqaymeed oo dhinaca cirka ah kii ugu ballaarnaa taariikhda adduunka sida uu yiri marka ay timaado weerar laga soo qaaday hal markab oo dagaal. waxaana howlgalkan loo adeegsaday farsamooyin ciidan iyo taatikooyin casri ah oo isku daraya maxadooyin kala duwan oo isu kaashanaya inay fuliyaan hal howlgal xilli ay wax badan iska bedelayaan siyaasadda dhuleed ee adduunku sida uu qorayo Army Recognition taasoo ka dhigan in Maraykanku uu Soomaaliya ku bixiyay 10 dhoolatus ah oo uu ugu falax koodinayo dalalka ula xafiltamo aan ujeedku waxta ahayn in Soomaaliya argagixiso laga ciribtiro. waxaana weerarkan 1 Febraayo Soomaaliya laga geystay walow ay fuliyeen dayuurado ka soo kacay markabkan misna waxa ka qayb qaatay qaybo kala duwan oo cir dhul iyo badba ah marka ay timaado agaasinka abaabulka iyo taliska intaba. marka ay timaado dayuuradaha duqeymaha geystay waa 16 dayuuradood oo ah nooca FA-18F Super Hornet kuwaasoo si isxigxigta oo mehrajaan oo kale ah uga soo dulhaaday markabka S. Truman oo adeegsanaya laan cigaaleed casri ah oo dayuuradahan ka caawinaya inay dhabahan kooban ka duulaan tiyo ay sidaan bambaanooyinka loo yaqaano Mark 80 ee indhala'aanta ah balse lagu xiray kuwa la hago ee JDAM taasoo bambaanooyinkii aan caadiyan la hagi jirin mar qora u rogtay nuuc la hagayo oo ku shaqaynaya GPS sidoo kale kaashanaya xanaanka loo yaqaano inertial navigation oo bomka ama gantaalka laftiisa awood u siinaysa inay go'aamada qaar kaligood gaaraan. waxaana markii labada la isku daro ay bambaanooyinkan ka caawinaysaa in ay dhulka hoos u galaan waayo sida qoraalka lagu sheegay waxa weerarkan lagu qaaday silsilada Golis ee waqooyiga dalka Soomaaliya oo loo arko meel ay saldhigtaan sahaydana ku kaydsadaan hogaanka kooxda Daesh. waxa marka laga soo tago howlgalkan qaabka cusub loo agaasimay ay ka qayb qaateen dayuuradaha FA-18F sidoo kale gacan ka geystay dayuurada ciidanka cirka ee shidaalka bixisa ee KC-135 Stratotanker oo ay sidoo kale garab taagan yihiin dayuuradaha kale ee EA-18G Growler oo ah dawlad sidoo kale gacan ka geysata dagaalka danabaysan ee loo yaqaano electronic warfare iyo dawladda kale ee E2D Hawkeye oo ah nooca digniinaha hore bixiya ama wax basaasa ee loo yaqaano AWACS. waxaana dawladahani iska kaashadeen waxa loo yaqaano tashwiishka ishaarooyinka ama signal jamming raadinta iyo shiishitaanka bartilmaameedyada iyo sidoo kale isku xirka dawladahan iyo taliska dhexe inta uu howlgalkani socday. waxaana waliba qoraalka lagu xusay hadal jees-jeesa oo ah walow aanay Soomaaliya lahayn hanaan difaac cireed oo casri ah misna in la isku xiro farsamooyinkan kala duwan waa mid ku cad caqiidada ciidanka badda Maraykanka oo ah in dagaal kasta laga muujiyo sarayn dhinaca farsamada ah xitaa haddii uu yahay dagaal uu heerkiisu hooseeyo ama lagu qaadayo cid aan u dhigmin xuduudda Maraykanka. si kastaba markabka USS Harry S. Truman oo badaha gobolka ku jiray tan iyo bishii December 2024 ayaa kaalinayay 3 talis oo uu Maraykanku ku leeyahay qaaradaha adduunka kuwaas oo kala ah taliska dhexe ee US Central Command ama CENTCOM, taliska Africa ee US Africa Command ama AFRICOM iyo taliska Maraykanka ee qaaradda Europe ee US European Command ama AUCOM taasoo dabcan ah cudud muujin istiraatiiji ah oo ay sameeyeen ciidanka badda Maraykanku. waxaana sidoo kale marka laga soo tago howlgalkan uu ka fuliyay Soomaaliya uu markabkan Harry S. Truman sidoo kale door ka qaatay howlgalka loo bixiyay Operation Rough Rider oo uu ku duqeynayay kooxda Xuutiyiinta ee dalka Yemen. isagoo tan iyo markii la geeyay badda Cas isagoo ay kaalinayaan maraakiib kale oo dagaal wax loo yaqaano Carrier Group halka ka geystay ilaa 670 duqeymood isla markaana sheegtay inuu qabtay ilaa 160 diyuuradood oo ah kuwa daroonada ah iyo gantaalo ay soo rideen kooxda Xuutiyiintu oo kharbudaad ka waday biyaha caalamiga ah ee gacanka cadmeed iyo badda Cas tan iyo dabayaaqadii 2023 taasoo ay ugu hiilanayeen dadka Falastiiniyiinta ah ee lagu laynayo marka Gaza.
waxaana markabkan oo markii hore ujeedkiisu uu ahaa inuu rondeeyo marinka muhiimka ah ee Bab al-Mandab Strait ilaa hilinka loo yaqaano Suez goolka ka soo cararay kadib markii ay dhibaatooyin gaarsiiyeen kooxda Xuutiyiintu isla markaana uu waliba qirtay inay badda uga dhaceen ugu yaraan 2 diyaaradood oo ah nooca FA-18 Super Hornet oo ah kuwa Soomaaliya weeraray taasoo ay dheer tahay in laga soo riday ugu yaraan 9 xabo oo ah daroonka casriga ah ee Maraykanka ku faano ee MQ-9 Reaper ugu dambeynna markabkan USS Harry S. Truman ee imika ku faanaya inuu Soomaaliya ka geystay weerarkii ugu xoogganaa ee uu abid sameeyo markab dagaal ayaa ku gurya noqon doona saldhigiisa oo ku yaala dekedda Naval Station Norfolk ee gobolka Virginia kadib 8 bilood oo uu mushaaxayay badaha kala duwan ee caalamka. Maxamed Xaaji, Hadalsame TV.